Open your purse. It's clean. Open your purse. بورصة فر. It's clean. والنظيف يعني وحبه كموسن هيلين. Hey, you didn't check her bag. Because she doesn't look like... Hey, you didn't check her bag. بورصة ماذن بارن ماذن جكرينين. Because she doesn't look like. محايا لأمة إكا. بركة جبلة ما دمسترنو. What? She doesn't look like what? You're out of your mind. I cannot let you in. Sorry. Jeff, why did you save me? We are a team, and I protect my team. We might believe in different gods, but we're working together. Why did you save me? محقي بدبادسي. We are a team and I protect my team. وحانو ناي كوح ديدنا وان إلاليا. We might believe in different gods. وعلاقة يابا إن إلهي كلا دوان آمسن نهاي. But we are working together. لكن وازسلا شقينا. There's no room for prejudice. Got it? Yes, and I'm sorry. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima. maanta intaan videoga bilaabin kahor waxaan jeclaystay inaan videoga la soo dhaafay 2 comment aan ka soo qaato kadibna hal iyo laba aan ka dhahno. Comment-ka koowaad waxa soo qartay Raya waxay leedahay abay sidee ku baratay Englishka, tell us please. Su'aasha marar badan ay weydiiseen waxa isku dayaa inaan videoga kan xiga ama kan ku xiga aan ka dhigo qaabka aan ku bartay luqadda Englishka. Kaliya midin sheegi doona qaabka aan ku bartay sidoo kale waxaan idin casuumi doonaa qaar kamid asxaabta ajaanibta oo aan isla baraatiin jirnay luqadda. Intaas waxaan dheeraan doonaa inaan idin la wadaagi doono tips and tricks maxaa yeelay luqadda Englishka aniga sahal kuma baran sidaad ugu rafaadaysan aynu ugu soo rafaaday. Comment-ka xigana waa Yaasir wuxuu leeyahay thank you so much, I enjoy your videos. So do Yaasir waa mahadsan tahay. video walba bilowgiis waxaa isku dayi doonaa inaad commentida quruxda badan aad soo bixisaan laba kamid aan soo qaato kadibna aan u jawaabo. Anyways intro yaa ku dheeraan fadlan hadii aad cusubtahay nagu soo biir channel subscribe videoga la garay una share garay asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishka. Haddana aan bilowno videogeena. Stop. You're not getting in. Stop, you're not getting in. Joogso ma gelaysid gudaha. Get in gudaha soo gasho. Waxaa waxay isla fiirinaynaa farqiga u dhexeeya get in iyo come in. inta badan come in waxaa loo isticmaalaa qofka markuu aslan asi gudaha ku jiro uu qofka la dhahayo soo gal. Get in waxaa loo isticmaalaa adoo banaanka taagan xataa inaad dhihi kartid qofka soo gal. Inta badan waxaa loo isticmaalaa gawaarida. Tusaale haddii aad gaari saarantahay qof dhihi rabtid gaariga soo kor waxaa leedahay get in the car. Why? What is wrong with me? Safety reasons. Why? What's wrong with me? Sabab maxaa iga khaldan? Safety reasons. Sababo amni. Reasons sababo. Safety amni. How exactly do I threaten the security? Okay. How exactly do I threaten the security? Sideen handadaad ugu ahay amniga? Threaten handadaad. Open your purse. It's clean. Open your purse. بورصة فر. It's clean. والنظيف يعني وحبه كموسن هيلين. Hey, you didn't check her bag. Because she doesn't look like... Hey, you didn't check her bag. بورصة ماذن بارن ماذن جكرينين. Because she doesn't look like. محايا لأمة إكا. بركة جبلة ما دمسترنو. What? She doesn't look like what? You're out of your mind. I cannot let you in. Sorry. What? She doesn't look like what? maxayna u ekeen. You're out of your mind. I cannot let you in. waad waalan tahay gudaha kuma fasixi karo. You're out of your mind. waad waalan tahay sida you're crazy oo kale waay. Hey, what are you doing? Hey! What the hell? Hey, what are you doing? maxaad samaynaysaa? What the hell? maxaa dhacaya? sidoo kale what the hell way isticmaalay badan tahay waxay ku xiran tahay meesha ay ku jirto laakiin inta badan waxay ka turjuntaa surprise. I'd like to order. Of course. Oh, I'm afraid you won't like it here. I'd like to order. waxaan jeclaan lahaa inaan wax dalbado. Of course, طبعا. I'm afraid you won't like it here. waxaan ka baqayaa inay intu aysan ku cajabin doonin. I'm afraid sida caadiga ah waxaa waaye waxaan ka baqayaa
laakiin inta waxay ugu jirtaa qaab kale markan waiterka wuxuu isticmaalayaa luqad formal ah ama afraid markan waxa waa marka raali gelin inta badan waxa la isticmaalaa qofka markii aad u sheegaysid wax inuusan heli karin ama dalab uu ku weydiisto aad diidayso kaleetad si aad u diidid qaab oo yani polite ah oo anshax ku dheehan tahay waxa ka hormarinaysaa ama afraid ama unfortunately yani nasiib daro oo kale. And all of our dishes have pork in them, so... Well, You won't like it here. Halkan kama heli doontid. And all of our dishes have pork in them. Cuntooyinkan oo dhanna waxaa ku jira doofaar. Dish sida caadiga ah waxaa waaye saxanka, sidoo kale waa loo isticmaali karaa cunto. then I'm gonna change the menu. Well, then I'm gonna change the menu. Hagaag, anigaa bedeli doona menuga. Waxaan rajaynayaa menuga taqaanin just in case hadduu jiro qof aan aqaanin. Menuga waxaa waaye listiga lagu keenaa maqaayad markaad soo gashto wax dalbanaysid oo ay ku qoran tahay dhammaan cuntooyinka ee maqaayadda bixiso. Waxay leedahay marka menugaas anigaa bedelayo. I'm afraid that only chef can do that. So... I'm afraid that only chef can do that. I'm afraid maadaama dhahna waa apology markan waxaan ku fasiraynaa waan ka xumahay. Waan ka xumahay chefka kaliya ayaa samayn karo taas. Ah, there you are. What took you so long? Mr. Ten Hag... There you are. What took you so long? There you are. Waa ku kaa. What took you so long? Maxaa ku soo dhahday yani? There you are lagu qaabo oo isticmaali kartaa. Haddii aad qof raadinaysid ay hesho kaleeto waxaa leedahay oh there you are waa ku kaa ama qof aad sugayso kale had sida video naga muuqato kale sidoo kale there you are waxaa isticmaali kartaa markii aad qof siisid wax uu kaa sugayay ama wax uu kaa codsaday markaa gacanta u gelinaysa waxaa leedahay oh there you are waa ku kaa yani waxaa ka qaado. Sir, I am so sorry. Do you want me to throw her out? Sir, I'm so sorry. Do you want me to throw her out? Mudane aadan ugu xumahay. So markaan waxay ugu jirtaa sida very oo kaleeto. Yani aad. Waxaa dhihi kartaa tusaale ahaan I'm so glad. Aadan u faraxsanahay. Hadaba ku soo qor qaybta commentiga jumlad adigoo isticmaalaya so kadibna dareen ha ahaato farxad, surprise. Do you want me to throw her out? Ma rabtaa inaan buriyo. Throw out markii dadka loo isticmaalayo waxaa dhahaynaa burin ama ceyrin sa u taqaanidba in qof meel laga ceyriyo ama laga buriyo. haddii ashyaada aan u isticmaalayno waxaa leenahay in la tuuro. On your way, don't forget to throw out the trash. Markaa sii socotid ha hilmaamin inaad qashinka hore usii tuurtid. Ama waxaa dhihi kartaa my parents throw me out of the house. Yani waalidiinteyda guriga iga soo buriyeen, guriga iga soo ceyriyeen. Harry, why would I want you to throw out our new head chef, huh? Guys, meet Zaharia Farrakani. From now on, she's in charge in here. Welcome. I'll show you around. Sure. Harry, why would I want you to throw out our new head chef? Harry waa magac qofkaad uu la hadlayo. Maxaan u rabaa inaad burisid madaxa chefkeena cusub? Head waa madax sidoo kale title-na waa loo isticmaali karaa. Guys, meet Zaharia Farrakani. Akhyaaray la kulma ama barta Zaharia Farrakani. Meet sidoo kale markaa waxaa ku fasiri kartaa iska baro. qof marka qof baraysa waxaa leedahay tusaale ahaan meet my mother hooyada iska baro. From now on, she's in charge in here. Laga bilaabo hadda iyadaa inta mas-uulka ah. From now on. laga bilaabo hadda she's in charge in here ida halkan mas'uulka ah. In charge waa sida responsible for yani mas'uulay ka tahay. Welcome, I'll show you around. Soo dhawow meelaha ayaan kusoo tutusayaa. qofka markuu meelka cusub yahay meelaha la tutusaa soo ma ahan. Not for long. Listen up and we'll get rid of her in a few days. Show around. Not for long. Ma sii dheeraan doonto. sidoo kale not for long fasiraadeedu waxay ku xiran tahay wixii ka horeeyay. Tusaale ahaan in this case wuxuu la jeedaa yani ma sii ahaan doonto madaxa chefka. sidoo kalena qaabab kale oo u isticmaali kartaa. haddii lagu weydiiyo tusaale ahaan how long will you stay here? imisa inta sii joogaysaa? waxaad dhihi kartaa not for long. maku sii dheeraana yani. Listen up and we will get rid of her in a few days. si taxadar la ii dhegeyso maalmo yar gudahoodana waan ka takhalusi doonaa. Listen up waa si taxadar la ii dhegeyso. wax yaray ka duwan tahay listen oo dhegeysa ah. sidoo kale get rid of hore u soo sharaxnay waa in wax laga takhaluso. Two salads for the boss and his friend. Uh-huh. Hey, don't get it wrong. The one with peanuts is for the boss, and the other one is for his friend. I'm a professional. No need to tell me what to do. Two salads for the boss and his friend. laba ansalaato oo ay leeyihiin booska iyo saaxiibkiis. Hey, don't get it wrong. ha khaldan. The one with peanuts is for the boss. midka ku jira looska waxaa iska leh ninka madaxda ah ama booska. And the other one is for his friend. kan kalena waxaa iska leh saaxiibkiis. Fine, I'm professional. waxaa laga yaabaa fine inaad u taqaanid keliya fiican laakiin way macno badan tahay. Fine sidoo kale waxaad adeegsan kartaa markuu qof kaa babadiyo aad warka dhibsatay waxaad dhihi kartaa fine.
sidoo kale micnooyin badan way leedahay haddii aad taqaanid mid ka mid ah nagula wadaag qaybta commentska hagaag ama haye waxaan ahay qof professional ah no need to tell me what to do looma baahna inaad ii sheegtid waxa la sameynayo no need looma baahna to tell me what to do inaad ii sheegtid waxa la sameynayo Idiots! You morons! You almost killed our biggest investor! I want to know who gave her the peanut salad, huh? idiots you morons dabaalo doqon yahay you almost killed our biggest investor waxaad dil gaarteen maalgeliyaheenii ugu weynaa investor maalgeliye I want to know who gave her the peanut salad waxaa rabaa inaa ogaado qof siiyey ansalaatada looska leh Now stop that and listen to me! Everybody knows that she's allergic to peanuts, so whose decision was it, huh? Come on! Listen, if no one confesses, I'm gonna fire each and every one of you, and you will not find a work in this town ever again. Stop that and listen to me. Joji waxaase ay dhegeyso. Everybody knows that she's allergic to peanuts. Qof walbuu og yahay inay allergy ku qabto looska. So whose decision was it? Go'aanka yaa lahaa. Come on, dhaqsada. Listen, if no one confesses. If no one confesses, haddii uu qof uu qiran waayo, confess, qirasho. I'm gonna fire each and every one of you. waxaan shaqada ka burin doonaa mid walba oo idinka mid ah. Fire waa shaqo ka burin. cagsigeedana aad ugu eg tahay waa hire. meesha oo F ile waxay ku bedelaysaa H, waxay noqonaysaa hire in shaqo lagu siiyo ama lagu shaqaaleysiiyo. Fire in shaqada laga buriyo. And you will not find a work in this town ever again. magaaladana dib dambe shaqo uguma heli doontiin. Youda markan waa jamac maadaama waa koox la hadlayo. Do you hear me? For Christ's sake, just take the responsibility! Do you hear me? Imaqlesan. For Christ's sake, just take the responsibility. anaga muslimiin aan nahay ma dhahayno for Christ's sake like waa ka faa'iideysanayna waxaa qaadanayna ereyga sake sida u fahantaa ereyga sake waxaa gelin doonaa jumlad can you please do that for my sake yacni taas ma u samayn kartaa aniga dartay for my sake aniga dartay for your sake adiga dartaa for their sake ayaga dartood and so on laakiin hadda maadaama ay kashtaan yihiin waxay leeyihiin halkan Christ oo ah nabi ciise yacni nabi ciise dartiisu leeyahay just take the responsibility kaliya mas'uuliyadda qaad yacni qaladkaaga qiro It's me, Mr. Tanyang. I'm sorry, I was in a hurry and I must have mixed up the plates. Okay. It's me, Mr. Tanyag. Waa aniga mudane Tanyag. I'm sorry I was in hurry. Waan ka xumahay waan degdegsanaa. I was in hurry. Waan degdegsanaa. And I must have mixed up the plates. Waan isku qalday saxamada. Plate, saxan. Mix up. In waxa la isku daro hadhow la kala saari waayo. Cuntada marka la karinayo xataa waa la isticmaalaa mix up. markaasna wuxuu micnaheedu noqonayaa in wax la isku calaanjiyo ama la isku qaso. Okay, listen. It's your first and last mistake, you understand? It's your first and last mistake. waa qaladkaagii ugu horeeyay iyo kii ugu dambeeyay. You understand? ma fahmaysaa? You understand markaan ma ku jirto su'aal sameeya laakiin waxaa ka fahmaysaa qaabka uu weydiinayo toonka oo ku hadlay sidaa ka dhigaya su'aal. Get back to work. All of you! You heard him. Come on, move. Get yourself together. Come on. This is not well done. This is burned at this point. Come on. Work, guys. Get back to work. Ulaawa shaqadaada. All of you, dhammaantiin, ulaabta shaqadiina. You heard him. waad maqasheen. Come on, move. dhaqaaqa. Get yourself together. Come on. dhaqsada ishabeeya. This is not well done. This is burned at this point. si aad well done u fahantaan waxay raashaxaad gelina. cuntada marka la karinayo khaasatan hilibka karinta waxay kala leedahay darajooyin steak marka wuxuu kala leeyahay levels wuxuu ka bilaabmaa rare waana qaybta ugu hooseysa sawirka ugu jeedaan wax xir ceeriin ku dhaama yani dabka la tuso waa lagala soo orday levelka labaad waxaa loo yaqaanaa medium rare waxaa waaye kii hore wax xir dhaama medium well done kan ugu dambeeya waa marka gabadhu waxay leedahay well done ma ahane markan waa gubtay yani levelka well done hadduu dhaafo uu gubanayo soo maahan Chef, why did you save me? We are a team, and I protect my team. We might believe in different gods, but we're working together. Why did you save me? maxaa ii badbaadisay? We are a team, and I protect my team. waxaanu nahay kooxdeedina waan ilaaliyaa. We might believe in different gods. waa laga yaabaa inaan ilaahyo kala duwan aaminsan nahay, but we are working together. laakiin waa isla shaqeynaa. There's no room for prejudice. Got it? Yes, and I'm sorry.
anyways video no dheeraad maro meeshan ku soo gabagabeynayna haddii u baahan tahay part 2 nagula qaybta commentiga part 2 ka soo sameyn doona waa video xiiso badan sidoo kale halmaam inaad nagu soo biirtid in ku cusub tahay channel subscribe ee video la garay una share garay asxaabta jecel inay bartaan luqadda Englishka and as always that's it for today see you in my next video bye